Somaliland ayaa ciidamadeeda ku amartay inay xabsiyada dhigaan qof kasta oo ka hor yimaada ictiraafka Somaliland ay la gashay Israa'iil iyadoona ciidanka Somaliland saacadii ugu dambeeyay gudaha magaalada Hargeysa ay ka qabqabteen dadkii ugu badnaa kuwaas oo Somaliland ku eedeysay u shaqeynayeen sirdoonka Soomaaliya iyo dhinacyo kala duwan kuwaas oo ka soo horjeeda ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil waxaan la wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysay ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil oo haatan wajahaya kacdoon xoogan oo dhinaca gudaha iyo xukuumadda Ciro haatan uu soo foosaaray walwal xoogan iyadoona dhinaca kale siyaasiyiin awood badan ku leh gudaha deegaanada Somaliland ay xukuumadda Ciro ka dalbanayaan inay si degdeg ah u soo bandhigto heshiiska ay la gashay Israa'iil waxaan la wadaagi doonaa sidoo kale xogta ku saabsan ciidamada Somaliland oo si joogto ah u bilaabay inay caburiyaan qof kasta oo ay ka dareemaan inuu ka hor yimaado ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil maxaase ka jira in Israa'iil hub fara badan ay gudaha Somaliland keenayso iyadoona sidoo kale ciidamo u tababarayso dhinaca Somaliland xogaasi xoog kale ayaa saaxiibayaal ku daawan doontaan barnaamijkeenan balse daawad inta aan guda gelin fadlan ku soo biir kanaalka muuqaalkana like dhigana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay gudaha deegaanada Somaliland waxa mar kale ka soo cusboonaaday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo la xiriira markaasi ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil iyadoona ciidanka ammaanka ee Somaliland saacadii la soo dhaafay xabsiyada ku gureen dad fara badan markaasi ay ka hor yimid ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil iyadoona xukuumaddu ay markaasi sheegtay in tallaabooyinkan ay ka qaaday dad ay ku eedeysay inay la shaqeynayeen sirdoonka Soomaaliya Somaliland waxay sheegtay inay jiraan dad fara badan oo dhaqaale la soo siiyay kaasi oo ay doonayaan inay ku dumiyaan ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil iyo in gudaha Somaliland laga abuuro dhaqdhaqaaqyo culus iyo dibadbaxyaal looga soo horjeedo heshiiska Somaliland ay wada galeen dhinacaas Israa'iil kaas oo bisha December 2025 Israa'iil ay Somaliland u aqoonsatay inay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale Somaliland waxay shaaca ka qaaday inay jiraan dad fara badan oo u dhashay gudaha Somaliland kuwaas oo loo adeegsanayo in markaasi dhaqaale fara badan loo gacan geliyo lana sameeyo kacdoonada dadweyne iyo sidoo kale qalqal ka dhan ah ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil iyo in indhaha bulshada lagu soo jeediyo markaasi tallaabada Israa'iil ay ku aqoonsatay Somaliland kaas oo sheegtay inay doonayaan in guud ahaanba meesha laga saaro ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil Somaliland waxay sheegtay in dhinacyo kala duwan oo aysan magacaabin ay si toos u maalgelinayaan dadkan waxayna markaasi ku amartay ciidankeeda amniga inay ka qaadaan tallaabo ku habboon iyagoona markaasi ku hanjabtay xukuumadda Ciro in markaasi ay tallaabo degdeg ah ka qaadi doonaan cid kasta oo ay isku dayda inay ka hortimaado heshiiska Somaliland iyo Israa'iil wada galeen iyo wax walba oo ku saabsan ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Somaliland Cabdalla Sandheere oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha Hargeysa waxa uu ka hadlay dad fara badan oo ciidamada Somaliland saacadii ugu dambeeyay iyo maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan ay ugu xireen gudaha magaalada Hargeysa kuwaas oo qaarkood caan ay ka yihiin baraha bulshada waxaana xukuumadda Ciro ay markaasi sheegtay in dadkan sababaha loo xiray ay la xiriiraan in markaasi ay dhinacyo kala duwan dhaqaale ka soo qaateen isla markaana ay sheegtay inay doonayeen inay burburiyaan Somaliland wasiirka amniga gudaha Somaliland Cabdalla Sandheere waxa uu si faahfaahsan u hadlay sababaha dadkaasi loo xiray waxa uu sheegay in xukuumadda Ciro haatan ay qaadayso tallaabooyin waxaana ciidamada amniga Somaliland amray in ay la dagaalamaan oo ay xiraan qof kasta oo markaasi isku daya in uu ka hor yimaado ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil tallaabadan waxay ku soo aadaysaa iyadoo gudaha deegaanada Somaliland ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo xukuumadda Cirona ay doonayso inay ka hortagto waxaana Somaliland ay xirtay dad fara badan kuwaas oo lagu kala xiray magaalooyinka Boorama ilaa Hargeysa laguna eedeeyay inay ka hor imaanayaan ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil ciidamada Somaliland ayaa lagu amray inay xiraan qof kasta oo qaadaya tallaabo markaasi ka dhana ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil dhammaan dhaqdhaqaaqyadan waxay ku soo aadayaan iyadoo dhinaca kale xukuumadda Ciro ay wajahayso culisyo xoogan oo la xiriira markaasi in xukuumaddu ay soo bandhigto heshiiska ay la gashay Israa'iil kuwaas oo ay dalbadeen xubno siyaasiyiin oo caanka gudaha Somaliland saameyn siyaasadeed awood badan kule marka la joogo Somaliland madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay dalbanay in xukuumadda Ciro ay markaasi soo bandhigto heshiiska ay la gashay Israa'iil kaas oo sheegay in uu markaasi muujinayo tuun xoogan iyo walaac uu ka qabo in heshiisyadaasi ay ku jiri karaan qodobo lid ku ah diinta Islaamka iyo sidoo kale Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu markaasi sheegay in xukuumadda Ciro haatan ay isku koobtay ictiraafka ay ka heshay Israa'iil iyo faylashan loo gacan galiyay markaasi dad u gaara xukuumadda
Ciro wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in maadaama laga shaqeynayo aqoonsi qaran la soo dhex dhigo siyaasiyiinta iyo bulshada Somaliland ictiraafka iyo qodobada muhiimka si looga eego markaasi qodob kasta oo la diko diinta Islaamka iyo Somaliland waxa markaasi xusay madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi in talaabooyinka ay qaadayso xukuumadda Ciro ay yihiin kuwo walaac ku abuuraya kalsooni darrana ku sii abuuraya siyaasiyiinta iyo sidoo kale markaasi dheergaradka Somaliland isagoona xukuumadda ugu baaqay inay banaanka keento heshiiska ay la gashay Israa'iil dhinaca kale maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha Hargeysa oo isaguna dhankiisa ka mid ah siyaasiyiinta ugu awoodda badan marka la joogo gudaha deegaanada Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa maalmihii iyo saacadihii la soo dhaafay hadallo kulul warbaahinta u mariyay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro iyo xukuumaddiisa kadib markii uu iska casilay xilka uu hayay maareeya daaradu waxa xukuumadda mar kale ku dhaleeceeyay inay qarinayso faylasha heshiisyada ay la gashay Israa'iil isla markaana loo baahan yahay inay banaanka soo dhigto heshiisyadaasi waxa uu markaasi sheegay inuu ka mid ahaa dhinacyadii ugu ballaarnaa ee markaasi taageerayay heshiiska ay la gashay Israa'iil Somaliland isagoona sheegay inuu ka mid yahay siyaasiyiintii sida weyn ugu ololeeyay hase haatee waxa uu sheegay in haatan ay u muuqato in la qarinayo waxyaabo badan oo ku saabsan heshiiskaasi isla markaana xukuumadda Ciro ay dad khaas u dhiibayso markaasi dhammaan faylasha ku saabsanaa ictiraafka Somaliland ay ka heshay Israa'iil waxa sidoo kale si kulul u dhaleeceeyay dadka Somaliland ay ku tilmaantay inay yihiin markaasi kuwo la shaqeynaya sirdoonno kala duwan oo ay xabsiyada u taxawday isagoona sheegay in xukuumaddu ay xirtay dad aan waxba galabsan oo muwaadiniin ahaa dhammaan dhaqdhaqaaqyadan waxay imaanayaan iyadoo Somaliland ay isku dayayso inay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay Israa'iil si ay u aqoonsadaan dalal kala duwan xilli markaasi la filayo in madaxweynaha Israa'iil uu booqasho taariikhi ku soo gaaro magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia iyadoona ay suuragal tahay in xubno ka socda Israa'iil ay safar qarsoodi ah ku imaan karaan gudaha deegaanada Somaliland sidii hore u dhacday oo ku yimid Hargeysa markaasi wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar kaas oo toddobaadyo kala duwan markaasi booqasho ku soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland arrimahan ayaa durba walaac xooggan ku abuuray xukuumadda Somaliland ee hogaamiye madaxweyne Ciro iyadoona ay markaasi sababi karto kacdoon baahsan waxaana xildhibaan Maxamed Abiib oo ka mid ah xildhibaanada Somaliland uu sheegay in xukuumadda Ciro haatan ay markaasi doonayso inay caburiso dadka dhiibanaya aragtidooda isla markaana waxa ugu baaqay in dadka aragtidooda xor looga dhigo haddii kale uu dhici doono kacdoon dadweyne oo ka dhana xukuumadda Somaliland madaxweynaha Somaliland ayuu ugu baaqay in markaasi uu joojiyo cadaadinta iyo siyaasiyiinta u wakiisha shacabka inay caburiyaan waxaana sheegay in taasi ay uga sii dari karto xaaladda haatan ka jirta gudaha Somaliland ictiraafkii Somaliland ay ka heshay Israa'iil dabiiqadii sanadkii in wadaadhay ayaa haatan wajahaya cadaasyadii ugu xumaa oo xukuumadda Ciro kaga yimid dhinaca gudaha iyo dibadda iyadoona dalal kala duwan ay qaadeen isbahaysiyo iyo duulaanno istiraatiiji kuwaas oo ugu hortagayaan Israa'iil ay soo saldhigato deegaano ka tirsan xeebaha gobolka Geeska Afrika dalal badan oo caalamka ayaa bilaabay durbaba awoodooda inay ku soo bandhigaan gobolka Geeska Afrika kuwaas oo ay doonayaan inay kaga hortagaan saameyn Israa'iil ay ku samayso Geeska Afrika dhinaca kale Somaliland ayaa wufuud kala duwan u dirtay markaasi dhinaca Tel Aviv halkaas oo xukuumadda Ciro u dirtay dad markaasi ay ku sheegtay inay soo qaadanayaan tababaro la xiriira dhinaca horumarinta markaasi aqoonta iyo kheyraadka ka faa'iideysiga ee gudaha deegaanada Somaliland iyadoona sidoo kale warar soo baxayo aan la xaqiijinay sheegayaan in Israa'iil ay hub keenayso gudaha Somaliland kaas oo la mid ah hubka Turkiga uu ku soo daabulayo gudaha Soomaaliya